ay tahay taageero loo muujinayo shirka dib u heshiisiinta iyo ay ka talinta reer hiiraan ee ka socda magaalada beledweyne ku dhawaad muddo bil iyo xoogaa ah inkastoo abaabulkiisa uu muddo intaasi ka badan socday xildhibaanada ayaa warbixino ka bixin doona shirkaasi sida aan la socdana labadan xildhibaan muddo 3 jeer ka badan ayay beledweyne tageen arrimaha shirkaasi in darteed si ay hawshaasi u socoto shirku markaa kulankan waa kulan isugu jira taageero iyo waliba warbixin siin xildhibaanadu waxay ka warbixin doonaan haddii alla idmo shirkaasi iyo sababihii uu ku bilaabmay iyo marxaladihii uu soo maray iyo halkaa hadda uu marayo ayaa xildhibaanada soo dhaweyn doona. bismillah alxamdulillahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa farxad inoo ah anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda reer Nairobi iyo odayaasha dhaqanka ee reer Nairobi, aqoon-yahaniinta, haweenka, culimada iyo dhalinyarada intaba anoo magacooda ku hadlaya inaan soo dhaweeyo xildhibaanada maanta martida nagu ah fadhiga iyo ayagoo nagala qayb galayo shirka dib u heshiisiinta iyo ka talinta gobolka Hiiraan ee maanta ka socda magaalada Beledweyne. shirka waxaan filayaa muddo fara badan ayuu soo jiitamayay, muddo badan ayuu soo socday, diyaar garow fara badan ayaa loo galay. waxaa maanta sharaf u ah reer Hiiraan oo cid ka maqan ee aad u yar tahay in ay isku tala galeen dawlad iyo hay'ad intaba ayan arinta qayb ka qaadan oo reer Nairobi waxaan ka wada reer Hiiraan ku talagalkooda uu shirka ku yimid wax alla wixii tashiilaad halka ka socdana ay reer Hiiraan maanta ayaga ay bixiyeen oo wax codsi ama hay'ad u dirsadeen ama dawladda ay u dirsadeen aysan jirin. waxaa arinta aan isleeyahay sidii la rabay uga qayb qaadan dawladda federaalka oo dhabtii bogaadinaya shirka maanta Beledweyne ka socdo laakiin dhinac dhaqaale aanan uga qayb qaadanaynin. marka waxaan aad u jeclahay maadaama xildhibaanada maanta ay nala joogaan shirkanna uu ku saabsan yahay taageerid aan u muujinayno walaalaha reer Hiiraan oo Beledweyne shirka ugu socdo in ayaga aan ku soo dhaweyno halkan maadaama dhowr jeer ay meesha tageen si ay u soo arkaan reer Hiiraan iyo waxa ay ka heshiinayaan iyo waxa ay rabaan mustaqbalkooda inay noqdo. saa daraadeed iyaga warbixin badan ka haya, iyaga raba inaan u daayo wixii warbixin gobolka ku saabsan iyo shirka meesha ka socdo. mar labaad waxaan idin leeyahay soo dhawaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عبد القادر هذا يوم هاتسين هاي قدوميها جاليدا دالك كينيا وحان مرة إن عدن ويرو أبو كاتا داهر حسن عبدي ويسوق بالوربحين كستو وقدم بين دونا حلبان علي نور حسين بوداية أبو كاتا داهر أسود وين يا مركز. بسم الله الرحمن الرحيم. وحان سلام جاليدا غير هيران كينيا inta soo abaabushay hawshaan inta u soo diyaar garowday inay taageero buuxa ka geystaan shirka Beledweyne ka socdo waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaantaas kadib hawshan ka socoto gobolka Hiiraan oo aad la wada socotaan ma ahayn howl laablakac lagu suubiyey, maaha howl abaabul loo galay. reer Hiiraan ay iska kaashadeen kuna talagaleen inay aayahooda ka tashadaan kuna bilaabaan dib u heshiisiin. hadda hawsha ka socoto aad aragteen waa dib u heshiisiin kuna dhammaan doonto in aaya ka tashi loo fadhiisto loogana gudbo. hadda waxaad la socotaan in adduunkii iyo waddankeennii uu hadda maanta u diyaar garoobay in federalism loo dhaqaaqo. mar haddii federalism loo dhaqaaqana federalism wuxuu ku dhismaa gobollo isteedya noqdo oo markaa kadib dawladda dhexa ku soo xirma. annagana waxaan go'aansan inaan ka mid noqonno dawladaha isdhisaaya
kadibna u diyaargarooba inay ka mid noqdaan dowladihii federaalka. waa la socotaa in intii hadda dhisantay kuma aysan dhismin rabitaan shicibkii meelaha deganaa wax laysu wada geegeeyey sharci aan loo marin markaasna iyagoo xataa aan israbin qoorta la isu geliyey. si aan marka taa uga tabaabushaysanno ayaa waxaan ku tashanay haddaan nahay reer hiiraan inaan annaga isku tashanno inaan u diyaargaroowno sidii aan dowlad u noqon lahayn annagoo aanan cidna hoos tegin sidii aan dowlad ku noqon lahayn. taa marka waxaan u diyaargarownay ilaa iyo 2 sano ku dhowaad ayaan shirar isdaba jooga ha noqdo kuwa teleconference oo taleefanada aan ku galnay ha noqdaan dowladda shirar aan la fariisan annagoo xildhibaanada ah annagoo reer hiiraana Nairobi ha noqoto dibadda ha noqoto wadankii ha noqoto shirar gooni gooni oo reer hiiraanka kale aan la galnay. intaasoo dhan marka waxaan u soconnay waxay ahayd si ay dowlad reer hiiraan uga dhalato gobolka hiiraan uu dowlad u noqdo isagoo aanan hoos tegin cid kale. waxaad la socotaan taariikhda hiiraan waxay ka mid ahayd 6 gobol ee ugu horeeyay ee wadanka uu ku dhismay. waxay ahayd 8 gobol haddana oo wadanka ku dhismay haddana waxay u gudubtay 18 gobol oo haddana wadanka ku dhisnaa. intaasoo dhan intii gobolada kale ay tarmaayeen hiiraan ha noqoto cadowtinimo ha noqoto si kale ha noqoto siyaaso waxaa loo diiday in hiiraan uu qaybsamo uu ka daba tago goboladii kale oo la qaybiyey. markaan intaas aragnay abaabul badan ayay galeen xildhibaanadii annaga naga horeeyay waxay ku dadaaleen inay hiiraan ka dabageeyaan goboladii tarmay. sheekh shariif dekreeto uu soo saaray 2 gobol uu ka dhigay 2 gobol ayadoo ah ayay dowladdan dhalatay dowladdiina waana diiday inay ansixiso 2 gobol oo sheekh shariif ku soo baxday inay ayido dowladdan waa diiday. taa waxay idin tusaysaa mar walba cadowtinimadii aan ka hadlayno way taagan tahay hiiraan inay iyada isku tashato maahane cid u maqan ma leh. annaga markaan tashanay xildhibaanadeenna la tashanay xildhibaanadii gobolka nala deganaa waxaa noo soo baxday in la gaaray waqtigii reer hiiraan uu isku tashan lahaa. aniga waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii ugu horeeyay ee gobolkii hiiraan cagta dhigay arrimahaana dhaliyey oo gobolkii ka bilaabay dhismihii iyo maamulkii loogu gogol xaari lahaa shirkan dib u heshiisiinta. shirkii dib u heshiisiinta ahaa sidaad ogtihiin waxaa iska kaashaday hal beel taasoo qarashkiisii oo dhan diyaarisay qurbajoog jeebkooda gacanta geliyey ilaa iyo haddeerna shirkaas daadiintiisii maamulkii gacanta ku haay. dowladda waxaan ku dadaalnay inayna garab gasho waa ka weynay wax taageero ah wax tegid ah iyo wax hoo ah intaba waa ka weynay. taa waxay tusaysaa markii inaan hiiraan weli diyaar loo ahayn inay dowlad noqoto. dowlad marka waxaa ka dhigi kara dadkii u dhashay oo keliya. cagajiidkii weli waa socdaa xubnaha dowladda waa tegi la-yihiin weli cag ma aysan dhigan gobolka hiiraan. intaas waa markaan uga baxo howsha gobolka ka socota cali nuuraa iiga dambeyn doono. waxaa kaloo rabay inaan afka ku dhufto waa la socotaan dagaallo inay xuduudka ka socdaan. dagaalahaasoo sidii hore waxaan moodaynay in 2 beel dagaal ka socda ah. annaga haddaan gobolkii nahay nabadaan baaqnay waa ogolaanay waxaan ku tashanay in gobol nabadaan dhignay dagaalna waa socdaa in la iswaafajiyo. nabadii aan qaadanay sidaad u jeedaan nabadii aan qaadanayna waa ku nagaan la'nahay maxaa yeelay haddana annagoo nabad qaadana dagaalka nagu socdaa. dagaalkaasaad u jeedaan oo markii hore 2 beel ka bilowday siyaasuu u bedelmay. waxaad dareemaysiin dowlad inayna soo weeraraysa hadda aysan ahayn 2 beel oo dagaalamayo gobolka hiiraana. dowladda annagana soo weeraraysa oo Ethiopia ah ilaa ay xuduudkeennii gudaha u soo gashay. waxay ku soo durugtay galgaduud dhul ballaarsi ayay wadaa. haddii aan magaca dowladda ku hadalno waxaan uga digaynaa una sheegaynaa dowladda Ethiopia inay ciidamadeeda gudaha soo galay kala baxdo
inay nabadgeliso inay labada beel ee kala degan xuduudka labadiisa dhinac inay Soomaali wada yihiin mar hadday Soomaali yihiin colaadan la dhaxdhigay Soomaali in laga joojiyo in labada beero meesha degan waa heshiin lahaayeen haddii la isu daayo faragelintana ka daayaan dowladda Itoobiya intaas waxaan ugu baaqaa dowladda Itoobiya wixii su'aalo gadaalan u dhigan doonaa aad iyo aad ugu mahadsantiin taageerada gobolka Hiiraan aad maanta u fadhisaan waa idin salaamay aad ayuu mahadsan yahay xildhibaan Abukaata Daahir Xasan Cabdi xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaaye ayaan markan ku soo dhaweynaya bal isagana sidoo ugu daro waxyaabihii uu ka tagay ama uu hilmaamay xildhibaan Abukaata Daahir على سيدنا محمد waxaan sidii xildhibaan daahir u yiriba aan u mahad celinayaa akhyaartii sharafta leh soo abaabushay shirkan sida degdegta lagu soo abaabulay oo intaana qofood ka soo qayb galeen dadka qaarkood ay maharadooda u soo dhaafeen maanta horta waa ka mahad celinayaa taas intii soo ajiibtay dalabkaas oo fadhiga noogu timid oo diyaar waa inay anagu warbixinteena dhageystaan su'aalahoodana jeediyaan iyagana waa ka mahad celinayaa gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa dumarka oo inta badan mataqaanaa xafladaha saan oo kale ah ku yar balse maanta aan ujeedo inay soo buuxiyeen fadhiga haddii aan wax yar dul maro waxaan rabaa horta inaan warbixin kooban idinka siiyo gogashaan aan maanta u fadhino ku ayideyno shirka aan ayideyno taariikh yar kooban inaan ka bixiyo meeshuu kasoo bilowday maxaa kalifay shirkaas inuu ka furmo beledweyne siduuna ku furmay siduuna ku socdaa markii aan xilka xildhibaanimada qabanay sanadkii 2012 markiiba waxaan ku baraarugnay in wadanka sida uu ku socdo ay tahay nidaam federalism mabaadi federalism dastuurka ku qoran la qaatay wadankana uu noqon doono sida dastuurka hadda ku qoran charterkii ku horeeyay ku qornaa oo laba gobol wixii ka badan ayaa noqon kara maamul noqon kara xildhibaanadii anaga naga horeeyay xilka waa ay fikireen talaabo fiican ay qaadeen waxay ka shaqeeyeen maadaama laba gobol wax ka badan ay maamul noqon karo Hiiraan inay cadaalad u raadiyaan oo laba gobol ka soo saaraan waa ay ku guuleysteen dekreetadii xildhibaan daahir ka sheekaya ka soo baxday laba gobol loo qiibay balse dekreetadaas waqtigay soo baxday iyo sida ay ku soo baxday ma ahayn si mataqaanaa danta gobolka ku jirta dekreetadaas waxay ahayd dekreeto waqti doorashooyin ay socdaan ay soo baxday madaxweyne Sheekh Shariif oo xilka ka sii dagaaya ayaa xildhibaanadii gobolka Hiiraan ku soo wada joogo dhan oo markaas kalaab ay ku kulmaan ama isku wareystaan lahaa ayaa u jeediyay tala in gobolka la qaybiyo waa uu ka aqbalay balse wuxuu ka aqbaloo kale in xildhibaanada oo dhan nin walba tuulada ka soo jeedo uu degmo ka dhigo labada gobol ee hadda la kala yiraahdo Hiiraan sare waxaan leeyahay shabeellada sare iyo Hiiraan shabeellada sare oo caasimad ahaan ku tilmaaman degmada Buulburta caasimad inay u noqoto waxay leedahay 9 degmo gobolka Hiiraan oo asna caasimadiisu tahay beledweyne asna waxaa ku tilmaamay dekreetadaas inuu leeyahay 13 degmo marka 13 degmo iyo 9 degmo waxaa ka soo baxay meeshaas waa 22 degmo 22 degmo oo qaarkood aan waafaqsaneyn nidaamkii dowladii hore federaalka u degsanaa ama tan hadda uu degsan oo ah in degmadu degmo kale ay u jirto 35 ilaa 40 kilomitir ugu yaraan ay u jirto ma waafaqsana sharcigaas waxaa kaloo sharcigu ka mid ahaa in degmooyinku say u jiraan ay leeyihiin khayraad ku filan degmada at least ugu yaraan 40% degmada inay soo saarato khayraadkeeda waxa ay degmadaas u baahan tahay tuulooyinka qaarkoodna maba laha awooddaas dhaqaale ay ku soo saaran karaan saa daraadeed dekreetadaas waxay ahayd dekreeto waqti abaabul doorasho lagu jiray la soo saaray iyadoo markaas loogu danaynayay intii cod laga rabay xildhibaanadii codka laga rabo dhan ayaa dantooda gaarka ah loogu daray gobolka marka sidaasuu laba gobol ku noqday annagu markaan xilka qabanay waxaan ka bilownay inaan raadino Hiiraan cadaalad u raadino haddii aan marka dekreetadaas riixno oo labada gobol iyo degmooyinkeeda isku riixno iyadana waxay caqabad ku tahay nidaamkii kale dawliga oo dhan ay caqabad ku tahay oo degmooyinkaas degmooyin oo jiri kara ama nidaam dawli ku jiri kara ma ahayn haddii aan ka dhaafnano gobolku wuxuu noqonayaa gobol kaligiis taagan qodobka 49 dastuurku wuxuu leeyahay laba gobol iyo wixii ka badan ayuu noqon karaa maamulku noqon kara 18 gobol oo dalku ka koobnaa xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre markay dhacaysay 91 ayaana lagu saleynayaa labadaas gobol marka 18 gobol Hiiraan gobol ay ka ahayd
wixii ka horreeyeen taariikhda ilaa intii qarannimada soo jirtana hiiraan sideeday gobol u ahayd weliba as a matter of fact in wax laga gooyi maan waxba kuma darsamin degaano hiiraan ka tirsanaa lixdameeyadii ayaa hadda gobollo kale ka tirsan waa garan kartaa marka siyaasad ahaan sidii gobolka hiiraan uu loogu gacan bidixeeyey siyaasadda annagoo marka taas ka duulayno ayaa waxaan raadinay marka fikir ah inaan gadno hiiraan dhul ahaan dad ahaan dhaqaale ahaan inay keligeed istaagi karto taariikhiyanna culayskii ay lahayd siyaasadeed ama ha noqdo mataqaanaa codadkii baarlamaanka ku lahayd ama culayskii siyaasadda ay lahayd oo ah sidii soomaaliya looga yaqaanay hiiraan ama dadka magaca lahoo siyaasadda ku dheer oo dhan ay kasoo baxeen hiiraan badankood inaan hiiraan aqoonsi gaara u raadino marka oon ku tilmaano inay keligeed maamul noqon karto taas waxaan ogaanay dadku inay ka go'do siyaasiga inuu iska qayliyo meelaha tago waa suuragal laakiin shacabku hadday u istaagaan inay barnaamijkaas ay curin karaan ayaa noo soo baxday waxaan aad ugu dadaalnay marka sanadkaas waqtiga sanadka 2005 sanad ka horreeyay 2014 iyo xataa aakhritaankii 2013 waxaan abaabul ka sameynay xildhibaanada aan anagu ambrelada ugu jirnay hawiye ayaan ka sameynay mataqaanaa abaabul waxaan tusnay inay danta ku jirto in dhulka beelaha hawiye ay degan yihiin 3 maamul ay ka soo baxaan ugu yaraan oo ah galgaduudii mudug oo maamul ah shabeellada dhexe iyo banaadir iyo waqtigaas xataa waxaan ku haminaynay in la soo celiyo gobolkii la dhihi jiray ex banaadir oo hadda gobolka shabeellada dhexe shabeellada hoose oo ka baxay oo aaday koonfur galbeed aaday waxaan ku taminaynay marka in banaadir soo baxdo hiiraantii jiri jirtana soo baxdo mudugna ay soo baxdo oo sidii ay ahayd 8 gobol markaan ahayn uu soo baxo intaas annagoo ka duulayno ayaan sharar badan oo qabanay beelaha xildhibaanada haweenka nala qaateen fikirkaas aad u gadayno ayaa waxaa soo kordhay haddana in la yidhi mataqaanaa gobolkii shabeellada hoose wuxuu raacay maamulka koonfur galbeed uu raacay barnaamijkaas wuxuu nooga fashilmay marka maadaama gobolkaas xagga uu raacay madaxdii dowladdana markaan arrintaa kusoo celinay noo sheegay inay dhaheen war dadku soomaalida wada degan yihiin haddii la wada degan yahay macno ma samaynayso in qabiil walba uu xerto mataqaanaa dhul xerto uu yidhahdo annagaa degan keliya qabailada si u wada degan yihiin ha wada noolaadaan gobolkan shabeellada dhexe wuxuu ka tirsan yahay maamul goboleedka koonfur galbeed wixii beeshaan ay ku leedahay xagga ha ka raadsato oo maamulkaas qayb ha ka noqoto dagaal iyo dood dheer kadib sidaasay ku dhammaatay waxaa soo haray marka gobolka banaadir shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo labada goboloo hadda maamulkooda uu socdo oo ah gobollada dhexe loo yaqaano galgaduud iyo mudug gobolka banaadir oo gobolka hadda markii statistically lasoo saaray xog lasoo saaray gobolka ugu dadka badan leh gobollada soomaaliyeed waxaa laga yaabaa 3 ama 4 gobol oo soomaaliya laisku daray inuu ka dadbadanyahay keligiis tirakoobka runta ah oo hadda oo statisticada soo baxday 1 milyan iyo 600 iyo jarjar lagu sheegay waxaana la fadhiyay madaxdii wasaaradda qorsheynta qaranka iyaga ka faalloon doono gobolkaas marka dadka degan inay iyagu laftigooda helaan representation ama ay helaan matalaad dowladda dhexe ka helaan dastuurka meel ka mid wuxuu leeyahay gobolka magaalo madaxda gobolka ma dhahay magaalo madaxda muqdisho waxay yeelan doontaa maqaam gaar ah waxaana go-aan ka gaari doona baarlamaanka federaalka meel kalena wuxuu ku leeyahay 18 gobol oo hore ayaa markay laba isu raacaan waxa ka soo bixi kara maamul ka soo bixi kara gobolka banaadir marka wuxuu ka mid ahaa gobollada 18 ka mid ahaa haddii marka gobolka banaadir uu gobol kale la heshiiyo oo gobol kale ku darsamo isaga laftigiisa inuu maamul noqon karo wax diidayo sharci ma jiro marka laga reebo qodobkan kale dastuurka ee dhahaya caasimadda waxay yeelanaysaa maqaam gaar ah marka iyadoo ay jiraan waxaasoo macnaha caqabado ah ama fikir siyaasadeed oo lagu kala duwan yahay ah ayaa anaga waxaa noo soo baxday maadaama aan matalno shacabka gobolka hiiraan iyo shacabka beelaha aan matalnay gobollada intiisa gobollada waddanka qaybo kala ka duwan inaan markaan u istaagno inaan raadino hiiraan wixii ka maqnaa cadaaladii ka maqnaa inaan u raadino sidee ugu raadin karnaa waxaan ugu raadin karnaa inaan shacabka reer hiiraan horta u sheegno muhiimadda siyaasadeed ay leeyihiin tan waddanka maanta ku leeyihiin horena ugu lahaayeen haddii ay ku dadaalaanna ku lahaan karaan mustaqbalka arrintaas ayaan waxaan bilownay muddo 6 bilood 6 ilaa 7 bilood hadda laga joogo aan bilownay abaabul ka sameynay annagoo abaabulkaas wadno ayaa waxaa soo baxay haddana fikir kaloo ah in gobolka banaadir iyo shabeellada dhexe iyo hiiraanba la isku dari karo oo maamul laga soo saari karo taas markaan aan cabirnay marka annagoo ka fiirinayna danta reer hiiraan ka fiirinayna waxaa noo soo baxday khatarta ugu weynba inay taas tahay
gobolka banaadir oo intaasoo qof oo degan tahay haddii hiiraan banaadir la hoos keeno in magaca hiiraanba uu taariikhda ka tirtirmayo magacaas hiiraan runaantii waa ogtihiin magac taariikh dheer la waaye gobolkan banaadir la yiraahdo ayuu la ahaa culays la ahaa dowladdii 1968 doorashadii u dambeysay oo xalaasha iyadoo doorasho box lagu rida ahayd hiiraan waxay lahayd 12 xildhibaan halka banaadir ay kala ahayd 2 iyo wax lamid ah marka hiiraan culayskaas leh in haddana la hoos keeno banaadir iyadana waa nooc inta muweyso waxaan niri dan siyaasadeed kama muuqdo meeshaas waxaan markaas xoog saarnay oo aan runtii culays saarnay sidaan ooga shaqayn lahayn marka gobolka hiiraan inuu gobol keligiis istaagan karo noqdo khayr allah siiyo dhawaaqaas aan soo dirnay qurba joogta oo weliba reer Kenya reer Nairobi aad ugu culays badan tihiin kaalin muglaad ka qaadateen macnaheedu ma inay horta idinka dhamaatay weli waa la kasii rabaa taageero inay sii socoto waa la rabaa laakiin waxaad saarteen runtii culays xoog leh ayaad saarteen barnaamijkaas aad noola qaadeen maanta wuxuu marayaa marka in bishii May 1 uu ka furmay mataqaanaa magaalada Beledweyne shirkaasoo loogu magac daray shirka dib u heshiisiinta iyo ay ka talinta shacabka gobolka hiiraan shirkaas kooda bishii markuu furmay waxaan u kala qaybinay 2 qaybood qaybta hore oo ah dib u heshiisiin in laga galo horta dadka shacabka gobolka degan ilaa dad markay heshiisiin isku darsan karaan in horta heshiisiin la galo colaadaha gobolka ka jiro oo aad maqlaysaan oo ilaa hadda wali sii socdana aan si dhaba markaan xal uga raadino waayo dagaal waa ognahay wax unbaa ku dhintay kuma dhashaan juhdigaas xoog la aan gelinay waxaan u kala qaybinay barnaamijka 2 qayb qaybta hore oo ah dib u heshiisiinta iyo qaybta ku xigta oo ah fayska labaad oo ah fayska telefoon mood iyo qaybta labaad oo ah ay ka talinta barnaamijkaas dib u heshiisiinta wuxuu soo socday hadda bishii May 1 ilaa haddana weli waa socdaa habka wax loo waday waxay ahayd beelihii reer hiiraan oo loogu baaqay inay gogoshaas yimaadaan 9 ka mid ah ayaa timid 9 beelood qaarna waa ay diideen sabab kasta ha noqoto qaar siyaasad ku diiday qaar ku diiday mataqaanaa arrimo kale oo iyaga gaar u ah oo meelo kale dadtooda ku arkeen 9kaas beelood oo isugu yimid waxaa la isugu aadiyey labo in maalin kasta uu dhaco kulan weerar 4 kulan ay dhacdo kulan kastana 2 beel ka mid ah ay isku warsadaan oo wixii ka dhaxeeya ay ka xaajoodaan kulankaas wuxuu soo dhamaaday muddo hadda laga joogo 2 week laga joogo soo dhamaaday beelihii isugu yimid qaarna kulay beelaa isku degaan ma wada ahayo qaaraan isu soo gaarinbo intii isu soo gaartayna waxay go-aan ku qaateen inay wixii kala gaaray ay xala dhalay ka noqdaan ay hore u socdaan qaar waxay ku heshiiyeen in dib u heshiisiintooda ay socoto muddo dheer socoto laakiin ay ogolaadaan inay heshiis noqdaan oo markaas heshiiska noqdeen wixii ka dambeeyay ay heshiiskooda sii socdo qaarna waxay go-aan ku qaateen inayanba waxbaba kala dhexgelin ama wixii kala dhex yaalla ay mar kale ka dhigtaan oo aysan hadda carqalad ku noqonin tan markaas taagan ay caqabad ku noqonin intaas kadib beelihii ka maqnaan marka shirka aan imaanin oo dhowr beelood ilaa 3 beelood oo aan shirka imaanin iyaguna waa loogu baaqay ilaa haddana weli baaqoodi waa socdaan qaara ogolaaday hadda gadaashay sidaan ugu maqaala ogolaaday inay shirka yimaadaan dib u heshiisiinta marka hore wuxuu ku bilowday juhdi dadka reer hiiraan shacabka ka bilowday sida uu xildhibaanku u sheegayna xooggeeda waxaa maalgeliyey beelaha gobolka beel ka mid ah oo maanta xooggeeda inta ku fadhido ayaa maalgelisay beelihii isugu yimid intii ogolaatay iyo intaan ogolaaninbo mashruucaas wuxuu noqday mashruuc ay dowladduna ayiday caalamkuna ogolaaday oo dad kala duwan oo caalamka ayaa soo arkoo tegay meesha inay dib u heshiisiin ka socoto soo arkay dowladduna waa ayiday waxaa igu maqaale intaan soo tegin ka hor inuu jiray abaabul ah inay madaxda qaranka tagto meesha prime ministerka wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga xataa madaxweynaha uu afkiisa laga yiri inuu safar ku tegi doono meeshaas oo dadkaas wanaagga ay muujiyeen usoo mahadcelin doono taas marka ilaa hadda meeshay maraysaa beelihii inta iscafiseen waa iscafisay intaan iscafininna waa ay socotaa waxaana si darri qolo rabta inay fashiliso shirkan ujeedada laga lahaa inay fashiliso rabto ayaa mararka qaarkood waxaa moodaa colaado oo aanan munaasib ahayn
oo runtii hore loogu daalay inay dib usoo celceliyaan ay dadkii ay kusoo celceliyaan waa nasiib darri anuu ka faa'iidaysanaya fursaddan idaacadaha qaranka hortooda waxaan ku leeyahay inay ka waantoobaan dadku waa wada dhasheen waa walaalo nabadaana wada deeqda dadkao dhan inayoo ka faa'iidaysanaya mataqaanaa fursaddan nabadda qaataan wixii colaadaha ama laisu qabanna laga xaajoodo bini-aadanka hadalku isla hadalku isku fahma xawayaankana urta haddaan la wada hadlana wax laisu sheegin waxba mehergalahay marka iyagana waxaan ugu baaqaya inay ka qayb galaan waa ka xumay waa ku dheeraaday كل شيء على صوب بيحضونه حصوب بيحضونه وحياة بدونه كلاريفيكيشن قدرنا في قل دونا شركة قيمة اللي منه عايك تشجعنا وفرمي سجنا إن شاء الله وحنرجعنا إن النتيجة في عكس صوب بحضه تذكر واحد يكون مالجلين الشركة النتيجة دي سماش الله يعرف مركب عجل الله يشوف هذا مركب ما يسنتين هذه ما سيحي حل مع النور حسين بوداية warbixin dheer ayuu ka bixiyay shirka iyo waxyaabo sawiir ugu bilowday halkoo marayay meesha loo socdo qofkii su'aalaha qabo galaal ayaan ka furi doonaa insha Allah haddii alla idmo oo xildhibaanada weydiin doonaa markan waxaan kusoo dhaweynayaa Axmed Garre oo agaasimaha guud ee waaxda agaasinka ee wasaaradda qorsheynta qaranka ee xukuumadda Soomaaliya Axmed soo dhaw dhammaan salaanta iyo soo dhaweynta waxaan la wadaagaa xildhibaanada kulligiin waa salaamantihiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas kadib wixii hadal ahaa horta xildhibaanada dhameeyay iyo wixii maaragtay siyaasad ahaa iyo meeshii howlway ay noo marayeen waxaa keliya oo aan raacin rabaa oo keliya un aqoonsiga labada gobol iyo in macnaha reer hiiraan inay laba gobol yihiin in loo aqoonsado horta maaha mid qof la weydiisanayo maaha waa mid aan annagu leenahay haddaan annagu isku garanno haddaan isku garanno inaan laba gobol nahay cid aan leenahay aqoonso ma jirto labaan banahayba midda kale arrinka dib u heshiisiinta macnaha sidaan la soconaba macnaa taariikhda soomaalida marka loo fiiriyo dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay waxaa dhacday dib u heshiisiin fara badan waa dhacday goobo badan waa la isugu yimid laakiin tan ka dhacday hiiraan oo hadda ka socoto mid lamida weli ma dhicin marka arrintaas iyadana in hoos laga xariiqo waa muhiim maxaa yeelay dib u heshiisiin ama wada hadal ay dowlad iyo dad shisheeye iyo dad kala wadaan yaa 25 sanana lagu wareeriyay Soomaali hadana laakiin reer hiiraanna iyagu wataan ay leeyihiin iyaga gobashii dhigtaan leeyihiin walaalow wixii iga ka gaaray ka daawo maxaan maaragtay islaan hor ugu socnaa ay leeyihiin waa arrin macnaha ku dayasho mudan soo dhaweyn mudan in la taageero istaahish ka maamul ahaan haddii la yidhaha maanta ama maaragtay cid walba sida aan la soconno maamul samaysatay Soomaaliya cid inta soo baxday qof kale u timid tiri warniyo maamulkaasaan rabaa inaan samaystay ii sameyn ma jirto cid inta loo tagay la yidhi war maamulkan noqona ma jirto waxaan waxa samaystay oo qabsaday waxay yihiin dadkii iska lahaa gurigaagii iyo reerkaagii iyo dhulkaagii iyo dalkaagii saad u maamulinaysid ama aad wax uga dhiganaysid cid aad kala tashanaysid malaha adaa iskale waa inaad inta usoo bandhigatid aad tirahdid war anigu sidan aan ahay sidan aan rabaa inaan wax kugula qaybsado haddaad raalli ku tahay igula qaybsado haddaan igula hayna maca salaamo marka taana iyadana in la xusuusnaado waa muhiim aanan martina uga noqonin annaga cidna aanan ka heybeysan inayna tiraahdo magacaagu maalin u baxay kabacdi inaad inta meel kale u tagtid aan idhaa maanta wareer axmeda la yiraahdo iyo ogooniyo inaan idhaahdo waa xoogaa waxa waaye waa daciifnimo waaye magacaygu mar u baxay axmedana la yiraahdo mar walba nabadda mar walba nabaddu annagay daawo noo tahay oo maxaa la yidhahdaa colaad waxaa la yidhahdaa wiil aa ku dhintamaa wiil kuma dhasha mar kasto horta aan nabad iyo aan raadino aan ka talino maaragtay inay gurigeenna aynan ku dagaalamin maxaa yeelay gurigaaga markii dagaalku uu soo gaaro nabadaa laga doortaa maxaa yeelay ilmahaagiyaa ku waxyeeloobaha gurigaagii dhismahaagiyaa ku waxyeeloobaha dadkaagii dantaadii iyo dhibka ugu weyn kaasuu gaaraa marka in mar walba nabad aan raadino daawo noogu jirto annaga arrin yar uu ka hadlay xildhibaanka oo waxoogaa ugu soo yaray wuxuu yidhi ninkaan hadda qorsheyntii uu joogay iyo telecoom iyo ugu yiri yaa rabaa wax yar inaan ka yidhaahdo
waxaan hadda la sameeyey oo wasaaradda qorsheyntu ay daafur u sameysay arrin in muddaa soo socotay oo qaarkiin inaad ka warqabtaan aan qiyaasahay oo ah in la sii daayay tiro macnaha lagu sheegay inay tahay tirada dadka soomaalida. waxaan rabaa horta in la xuso tiradaasu inaysan ahayn tiro koob, oo tiro koob marka la yidhaahdo waa inta meel la tago qof dadkii loo tiriyaa la yidhahdaa tiro koob. marka tiro koob maaha, horta waa qiyaas. wax walbana intaanan la gaarin, dhabtooda intaanan la gaarin, waxaa muhiim ah in la helo bal marka ugu horeysa fikir laga haysto oo la yidhahdo meeshan bal fikir nooceen ka haysanaa iyo qiyaas halkeen u gaarnaa. waa sax, hiiraan waxay ku jirtaa tiradaas la sheegay meelaha ugu liidatay ku jirtaa, oo tiradeeda dadka qaarkiis badidiisa anigaba aan ku jiray aan aaminsanahay inay tahay weli maaragtay waxaa la yidhahda under representation in la yidhaahdo, oo tiradii aanay ahayn mid macnaha la dhihi karo waa tirada dhabta ee hiiraan la dhihi karo aysan ahayn. laakiin waxaa iyadana muhiim ah inaan isweydiino su-aalo ay ka mid yihiin tiradan maalintii qiyaastan la sameynayay horta qaabkee loo sameeyey waa muhiim, yaa sameeyey iyana waa muhiim, conditionka ama marxaladda markaas annaga aan ku jirayna maxay tahay iyadana waa muhiim in la isweydiiyo. tirada waxa sameeyey waxay ahayd wasaaradda qorsheynta ee dowladda dhexa sameysay tirada, iyadoo adeegsanayso la tashiye ay la sameysay maamuladii iyo dadkii markaas mas-uulka ahaa. dadka intay baxeen su-aalaha dadka soo weydiinayana waxay ahaayeen dadkii ka yimid ama gobolka ama degmada markaas la tirinayo dadkii ka yimid ahaa. tiradan marka dadka soo tiriyey waa reer hiiraan, magaalo kastana dadkii markaas loo diri karaa tagay. marxaladda marka uu ku jiray gobolka hiiraan xilliga la sameeyey tiradan qiyaasta ah waa 2013. marxaladda hiiraan ay ku jirta 2013 kulligeen waa wada ogsoonahay. dadkii hiiraan deganaa way ka qaxeen, dadku ha qaxaana laba miday tageen, marka actually 3 baa aan leeyahay miday meelay ay aadeen. inay inta ka baxeen gobolkii ay dibadaha ay aadeen waa wax dhici kara, waa dadkii markaas awoodo oo dhaqaale maaragta haysto inay dibadda u baxeen waa wax suurtagal ah. inay ka tageen oo magaalooyinka u dhadhow ama gobolada u dhadhow oo nabaddu ka jirto inay tageen iyadana waa suurtagal, waa mid kaloo dhici karto. waxaa kaloo saddexaysa ciddii aanu labadaasba awoodin inay intay baxaan miyiga aadaan iyadana waa suurtagal. tirada marka qiyaastan la sameeyey ee lagu saleeyey reer miyigii, reer magaalkii iyo magaalooyinkiiba lagu saleeyey lasoo qiyaasay waxay u dhacday in random wax la yidhaahdo loo tiriyey oo qof maaragtay tiro gaaban lasoo qaatay kadibna si cilmiyeysan loo qiyaasay. marka munaasabadu arrintaas ma in looga hadlo, laakiin in fikirkaas guud macnaha laga haysto oo haddana meel kalena anugu wada hadli karna ayaan rabay horta inaan taana aan idiin sheego. arrinka hiiraan marka aan dib ugu soo laabto iyo wax noqoshada hiiraan sidaan u sheegay horeyba haddana aan ku celinaa waxay tahay cid laga sugaaya inay maanta hiiraan wax noo sameyso ma lahan. baaxadaan u leenahay, dadaan u leenahay, waxaan u leenahay mansab, maadaama goboladii kaloo dhan la qeybiyey oo 18 gobol laga dhigay, annagana xaqaan u leenahay inaan helno. macnaha 18 gobol waxay kusoo baxeen dikareeto madaxweyneay kusoo baxeen, sax? tanna iyadana 2 gobolna dikareeto madaxweyneay kusoo baxday. waxaa jiray dastuur iyo maaragtay heshiisyo la saxiixay iyo waxbaa jira lagu leeyahay. cid kaaga dhow adiga oo waxaaga inaad adigu sheegatid kaa xigta maanta ma jirto. marka waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynaa hiiraan annagaa iskale, taladiisa annagayna sugaysaa, meeshan annagu geyno ma tagaa, cid noo dictate garayn karta ama noo sheegi kartana ma jirto. wasalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يوم هالسنة أحمد قرة وأقاسمها كل واحدة أقاسمك واحدة استاتيستيكا وزارة قرشين قرنكا مركن وحنوية يا عبد الرحمن عدو ومجا عبر بجوك تقوى دونين كستوي عبر بجوك مهنية عبد الرحمن زهرو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. آد أنا يانوم هاد علميا أنا جالية الرير نيروبي، أنا قدومي عبد القادر الشيخ مؤمن، أنا يرمان ماركتي أضياش هالكان فرنسا،
sidoo kaleeto waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh cali nuur boodaaye iyo avocaato daahir xasan cabdi iyo agaasimaha guud wasaaradda qorsheynta qaranka mudane axmed gare dhammaan walaalaha halkan iskugu yimid dumarka iyo maaragtay bulshada qeybeeda kala duwan ah waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka mid ugu qaalisan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxa weeye aniga qurba joogna waan ahay reer nayrobina waan ahay inkastoo nairobi ruuxeeda qurba ay ka mid tahay markay kaftamaanna ay yidhaahdeen annagu soomaaliyan ka tirsannahay oo ummadii soomaaliyeed 22 sano ugu dambeysa anaga matalaynay waqti ma hayo soo gaabiyaan la yidhi reer nairobi maanta waxaan ku ammaanayaa martiqaadkii ugu wanaagsanaa intaan xaflado tiro badan oo shirka beledweyne ka socda lagu taageerayay ayaad samaysaan kaas oo jecib ah marka waa idinku hambaleynayaa jecibka martiqaadan intaa kadib waxa weeye soomaalida waxay tiraahdaa war la qaba xiise male kulley shirkan beledweyne ka socda muddo dheer oo socday reer hiiraan ayagaa isku tashto gobol dhigay ayagaa heshiiyey inta maqanna insha allahu inta badanna colaad kuma maqan arrimo siyaasaday ku maqan tahay waa inay imaan doonaan waxaa kaleeto maanta rabaa inaan hoosta ka xariiqo bilad sharaf aad siisaan labada xildhibaan oo halkaas fadhisa fasaxoodii ku qaatay ee beledweyne siday u fadhiisin lahaayeen shirkaas marar badan u taagnaa sidii ay maaragtay hiiraanna xaqa uu leeyahay ay u heli lahayd marka waxaan leeyahay aada iyo aad aad mahadsantihiin shaqo wanaagsan aad bulshadeena u qabateen aadaan idinku ammaanayaa walaalaha aan qurbaha kusoo arkayna aad ayay idinku mahad celinayeen marka soo dhowaada waxaan rajaynaynaa inta dhammaana inaad dhammaystirtaan waxaan rabaa marka 3 qodob ama 4 qodob inaan hadalkayga kusoo gaabiyo qodob waxa weeye hiiraan taariikhdeeda wax badana laga hadlay sida ninkii ugu dambeeya walaalka u hadlay annagu haddaan is aqoonsano cidna hor istaagi kartaa ma jirto marta ogaada aqoonsiga cidda laga rabaa dowladda maahan kenya maahan etoobiya maahan waa annaguna waa tashanay hiiraan shira ka socda shirkana insha allah waxaa kasoo bixi doona insha allah waxaad ku faraxdaan oo ah in bulshada shirkaas waxaa kasoo bixi doona reer hiiraan waxay raalli ka yihiin oo ah inuu meesha ka soo baxo dowlad goboleed ee reer hiiraan ay leeyihiin hiiraan waa isku filan tahay hiiraan way isku filan tahay dhaqaalo ku filan bay leedahay dhul ku filan bay leedahay population ku filan bay leedahay waxaa kaleeto rabaa halkan inaan ka cambaareeyo يعني statisticada soo baxday oo populationka ah oo yani qolana lagu exaggeration lagu sameeyay yani meelo badan ay hiraan ay ka mid tahayna yani lagu xaqiray waxaan leenahay arintaas waxa weeye natiijo sax maahan waana maaragtay waxaan leenahay sax maahan waa qalad waxaan leenahay maaragtay ha lagu laabto statisticada la soo saaray waxa la rabaa in lagu isticmaalo 2016ka doorashada soo socda in saldhig looga dhigo marka waxa weeye in lagu baraanugsanaado aad ay muhiim u tahay waxa kale oo rabaa inaan halkan aan idin sheego dowladda federaalka maaragtay anagu aan ka tirsanahay oo dowladeeni ah shirka halka ka socda way dayacday adika iyo dad idin lamida ayaa $100,000 shirka ku bixiyay maantana uu shirkaas uu ku qabsoomay beledweynan tagay waxaan la kulmay bulshada qaybaheeda kala duwan dhalinyarada gobolka aqoon-yahaniinta dumarka yani dhammaantood waxay ka midaysnaayeen reer hiiraan inay isku tashtaan gacan bay isi siinayeen yani waxa weeye dad isku tashtay ahaayeen waxa weeye intan soo maray oo wadanka Norway ka mid yahay Sweden ka mid tahay wadamo kale oo tiro badan ay ka mid yihiin reer hiiraan oo isku tala galeen gacan bay isi siiyeen annagoo kaashanayna siyaasiyiinteena sharaf kale halkan fadhisa waxaan rajaynaynaa hiiraan xaqi ka maqnaa inay hesho 18 gobol ee maanta Soomaaliya ka kooban tahay waxaad ogaataan 18 gobol maanta Soomaaliya ka kooban tahay oo 17 gobol laga dhigay 7 gobol oo la qaybiyay waxa weeye ninka qaybiyay military oo inqilaab ku qabsado aha
dowladda rayidoo lasoo doortay inqilaab ku qabsaday kadib uu qaybiyey nin hadda baarlamentary ay soo doorteen sheekh shariif waxaa soo doortay baarlamaan bulshada matalayay gobolku uu magacaabay ma aqoonsanayno kii militariga xoogga ku qabsadaan aqoonsanayno ruuxeeda raahiran way fahamsan yihiin arrintaas mana yeeli doonaan way jirtaa cilado gobolka shabeellada sare oo hadda xildhibaan cali nuur boodaaye oo magacaabay qaabka loo magacaabay inuusan aada u qurux badnayn u baahan yahay farsamo in lagu laabto laakiin waxa weeye muhiimaddu waxay tahay hiiraan ama dowladday hoos tegi doontaa ama iyadoo state ah sida diridhab oo kaleeto wadanka etoobiya magaalada diridhabe waxa weeye waa state waxa weeye waa federal marka muhiim maahan bulsho meel degan hadday heshiiso waxay ku heshiisa ayaa sharci ah sharcigan hadda dastuurkan kumeelgaar waaye gabadha moqokori joogta midda buqa qablo joogta midda kismaayo joogta waxba lagama weydin marka yani sharciba maahanba maanta sharci waxaa noqonaya bulshada reer hiiraan waxay isku raacdo ayaa sharci noqonaya dowladda iyo inta ku hareereysanna waxay ku qasban yihiin inay aqbalaan rabitaanka reer hiiraan rabitaanka reer hiiraan waxa waye hiiraan inay ahaato yani ay state maaragtay dowladda federaalka ay hoos tagto nabadgelyo iyo wanaag iyo horumarna kula nool gobolada la deriska iyo isteedada la deriska sida gobolada dhexe kuwa kaleeto maaragtay shabeellada dhexe iyo maaragtay baayo bakool marka waxaan kusoo gaabinayaa aqoonsigu waa annaga dagaalka qolooyinka wada oo maaragtay ku carqaladeynaya shirkaas waa la fahamsan yahay waxaan baaraynaynaa dagaal maanta looma baahna waxaan leenahay dowladaha deriska oo faragelinta ha ka daayaan يعني هكذا يعني قبل كيران هكذا يعني وضعك الصومالية دولة الصومالية أنا وزارة الرمى جودها قاشان دقة يوحنوا باقينا يعني أنا كجابيان رنتاس أنا مارك تكلا حلان دولة فرقلت كويس سيدا دولة إثيوبيا ما ملكية دولة دجانكا أنا فرها كقاضان فرقلت كويس وضعك الصومالية وعن كسر قابل هذه ما سنتين هيران وقول سنة وذا جربا كقول سنة من ما كقول سنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عبد الرحمن هذا يوم هتسيعي waxaan rabaa markan inaan kusoo dhaweeyo nabadoon maxamed shukri maqribna waa nagu dhow yahay waxaan ka codsanaa dadka inay soo gaabiyaan hadallada muhiimadda inta badan maxamed shukri soo dhow. waxaan u mahadcelinaya guddiga jaaliyadda oo arrintaan noo abaabulay suukaana yeeray meeshaan sharafta badanna noo goglay aad baan ugu mahadcelinaya waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada yimid martida ahaa daraaddood gogosha loo dhigay juhdi badanna ku bixiyey wax hadda laga soo sheekeeyey oo gooni isku taagga reer hiiraana juhdi badan ku bixiyey waqtigoodii qaaligaa u huray aad baan ugu mahadcelinaya marti sharafta kale oo ka soo qayb gashay oo jaaliyadda ah oo odayaal leh culummo leh haween leh dhallinyaro leh na waan u mahadcelinaya markaan intaa ka gudbo waxaad moodaa waxaa la yidhi hadallada soo gaagaabi laakiin aad baan ugu ciil qabay reer hiiraan oo kulansan inaan xoogaa kelmadaha ka jeediyo aad baan ugu ciil qabay sidaas darteed xoogaan halay dulqaato intaa markaan ka gudbo hiiraan sida hadda raggii hore ka soo sheekeeyey aanla la wada og yahay wuxuu ahaa 6dii gobol ee dowladnimada lagu aasaasay ayuu gobol ka ahaa wuxuu gobol ka ahaa 8dii gobol oo labada waqooyi markay noo timid 8 noqotay ayuu gobol ka ahaa waxaa goboladaas qiimeeyo gobolla ka dhigay dowladdii Soomaaliyeed oo markaa dhalatay oo baarlamaan leh oo madaxweyne leh oo wasiir leh ayaa qiimeysay baarlamaankii Soomaaliya ugu horeeyay qiimeeyay waxa jiray doorashooyin baa laga gal jiray kuraas baa lagu qaybsan jiray hiiraan gobolada gobolka ugu kuraas badan u ahaa sida hadda rag horeba ka shaqeeyay 12 kursi u lahaa boobalaha loo siiyay qasuusan 2 degmo ahaa buulo burtiyo balad weyn u ahaa buulo burtaasi kuraas badnay
populationkaana loogu sameeyey 7 kursi bay lahayd gobol 7 kursi leh oo Soomaaliya oo aan baay ahayn nama jirin 7 kursi ayuu degmay 7 kursi leh hal gobol oo 7 kursi leh oo aan gobolka baay ahayn ma jirin saasaad ku garanaysaa populationka jiray inuu markaa badnaa waxaa jiray hiiraan waa ballaarnaa dowladdii militariga qaab kastaba halayda ayadaa jarjartay tiyaglo baa ka mid ahaa qurac joomaa ka mid ahayd labadaba waxaa loo gooyey bakool waxaa ka mid ahaa mahadaay iyo buurne ayagana jawhara loo gooyey saasaa loo jarjaray waxaan filaynay haddii dastuur la dhigo ama dowlad sharciyanu ay tiri in sidii hore lagu soo celiyo oo Soomaaliya 8 gobol lagu soo celiyo sababtoo ah ninka jarjaray 8 gobol 18 gobol ka dhigay 10 ku daray 7daas 10ka ku daray hiiraanna ka tagay lama dooran xoog uu dalku qabsaday wuxuu yiraahdana soconayay kaligiis buu ahaa dadka shaday oo isku tagay kamid maahay sidaas darteed wuxuu sameeyay sharci ma qolada dastuurka ku dagtay oo 18 gobol ah sharciya aadan u cambaaraynaya dastuurka qoladii qortay sababtoo ah 18 gobol sharci ma ahay madaxweynaha sameeyay xoog buu ahaa sharci ma ahay hadda iyo dan madaxweyne sharci oo la doortay ayaa qaybiye hiiraan 2 gobol ka dhigay ayada in la raaco waaye haddii la raaci waayo hadda Soomaaliya waxay noqonaysaa nin walba uu taa ku tasho iyadaas in la raaco waaye reer hiiraanka meesha fadhiyo mid ka maqan ama gobolkii ha jiro ama qurbaha ha jiro ama hadda magaalada ha joogo reer hiiraana waxaan leeyahay aayaheena sida hadda aad uga tashateen oo xildhibaanada joogaahu ay hoggaanka u qabteen arrintaa ku ayida ayaga garab istaaga kullay anigu shakhsi ahaan waa garab taagana inta kalena waxaan ugu baaqayaa inay garab istaagto ama ha maqnaato ama ha joogto intaa markaa ka gudbo oo aan intaa ka gudbo waxaa jirta hadda waqtiga la joogo hiiraan wax isku filan goboladaas markii 8 ay ahaayeen ama 6 ay ahaayeen ama 18 ay ahaayeen hiiraan gobolka kaliya oo xagga dhaqaalahan isku filan buu ah warigi lama kabin warigiis lama kabin 68 iyo hadda ninkaan ka sheekeynay doorasho ugu dambeysay xalaal wax lagu rido anigu nin weyn oo ahaan joogay seejan joogay baar meesha la yiraahdo seeja ka joogay xisbiyaan u ahaa ilaaliye sidaas darteed gobolka gobol isku filan u ahaa haddana waa isku filay marka baaruu leeyahay mirabaxuu leeyahay Soomaalida kala u baxan waa isku filay waxaa kaloo leeyahay gobolka 5 gobol ayuu soo dilay باي مركا بكول مركا لقى صوب لا سيل حي توانك مركي سدري توانك لا صوب ري بكول وعلولا يا سودين باي سودين بولري شبيلada hoose soodin buu leeyahay shabeellada sare soodin buu leeyahay galgaduud soodin uu leeyahay inta waxa uu leeyahay kilirka shanaad uu leeyahay xiriir dheer leeyahay waa gobol isku filan inta leh reer hiiraan nin walba asaa wiilka ugu dhalan magac ula baxa magac baa u baxsan waa 2 gobol xoogaa hadda waxa la yiri xoogaa degmooyin badan iyo waxba jira meeshii u qaantaa la qaadanaya meeshaan u qalbina waa laga tagay waxaan leeyahay 2 gobol ha laga midno hiiraan ha taageero baa jira oo kale awalan waxay ka cudur daar waxa kaloo jira isla faraashiin waxa noogu dhow kilirka shanaad ama Ethiopia noogu dhow
etoobiya waxay leedahay 9 maamul deegaan iyo 2 maamul ismagaalo 11 kaasay leedahay idaacadaha waa ka dhagaysateen labada ismaamul waxa waaye diri dhabe iyo harar labada ayagaa iskood isku maamulo 9 kaasay la meeliyeen hadday suuro gali weyso ay dowladdu cusulka nagu dhufato ismaamulaan noqonaynaa sida waxaan noqonaynaa qolooyinkaasoo kale ismaamul magaalaan noqonaynaa waana isku filanna halkaasaan taa uga baxaya waxaan yaroon ku soo darayaa waxaan ku darayaa xoogaa waxaa la yidhi xuduudda dagaalaa ka jira dowladda dhul baa jiray soomaaliyeed xuduud buu lahaa waa la yaqaana soomaaliya 5 baa loo qaybsaday baarliin shirkii baarliina 5 loogu qaybsaday labaa israacday labadaas xuduuday leeyihiin saddexdii kale mid sideedii u taagan toosna Soomaaliya maamusho labada kale dawladaha dariska ah goost welina waa maamulaan waagii hore tooday dirqi ku jireen laakiin hadda waxaad moodaa inay Soomaalidii kala xortahay u anqal taageen markaan ka soo qaaday Kenyadaan hadda joogno darbiyaa laga dhisay meeshii ay ahayd buulaha oo hadda magaalada balad xaawo meeshii uu ahaa seerka 20 kilomitir ay xagga ka mariyeen darbiga maalowda tii lagu dagaalamay dawladdu inay waxaas aragtaan ugu baaqayna markaan soo qaadano Ethiopia xuduudii hore hadda waxaa laga soo tilaabay 8 gobolka Hiiraan aan ka warqabaano burka meesha la yiraahdo 5 kilomitir xuduudda ka xageeya 8 waa laga soo dhigay 13 kilomitir ay muddo soo joogtay haddana deefo baa lagu daray iyo kabxalay oo 5 kilomitir 18 kilomitir la rabaa in la gooyo dawlad deegaanka Ethiopia la rabaa aarta inay gooyso ha kala haato dan kasta ciidamo la yiraahdo New Boris oo markii hore loogu tala galay inay difaacaan kilarka shanaad wax kasta oo macnaha durqaana aad loogu hubeeyay ayaa ku soo duulay kabxalay la soo dhigay maaha beelaha degan oo xurguftu ka dhacaysa ama wax isku dhuftay weligood ay Soomaaliya dagaalama jirtay waana heshiinaysa geedka hoostiisa ku heshiinaysa waana heshiin doontaa ehel baan nahay walaalaan nahay wax dhib oo aad u ma jiraan dhibku waa kilarka shanaad iyo dawlad deegaanka oo ciidamada soo dhigay New Boris ha ka noqdeen aan leenahay dawladuna ha aragto xuduudada la soo gurayo awal taasa loo hanqal taagi jiray ayaga carri ku jiray ilaa diri dhabaan lahayn haddana tiyaa xuduud beenaadkiyaaba laga yimid arrintaas waxaan aad ugu mahadinayaa agaasima qorsheynta hadduu la joogo qorsheynta xuduudada ay leedahay Soomaaliya oo dhan ay leedahay agaasime arrintaas inaad aad uga fiirsataan oo xuduudii hore soo socdeen aad ka foojigaataan aan rabnaa intaas markaan ka gudbo wax yaraan rabaa dad baa u taagaya in Hiiraan meel kale lagu daro ama dawladda ha ahaadeen ama ku dhashay ha ahaadeen dad gooriya leh midka marka in meel kale lagu daro waxaan taaqay ama dawladda ha noqdo ama mid u dhashay reer Hiiraano dhan kale ha noqdo labadaasba waxaan ugu baaqaynaa in laga waantoobo Hiiraan waa isku filan tahay hadday dawladdu ay tahay dawladdu ay taageer mid u dhashay hadda tahay in Hiiraan laga amaleeyo imaad ka tali laakiin meel kale waa hanqal taagan qoladaas intaas aan leeyahay taalaha la iga hado soo gaabiyaa la leeyahay waa ka bax هذا ما سيحي محمد شكري مركن وعن كسر وينيا شغلوا كرجم على جابو وحمل سعادتكم أنت بدل أنت غير هذه الشركة قرب مليان وأرنتي لجودة قلنا مركا وحن وشيء لها إن أرنت أصلا دلفيريو كسر وشغلوا كر أنا قربتها waxaan u nimiday inaan taageerno
shirka dib u heshiisiinta iyo aaya ka talinta reer hiiraan. waan taageeraynaa, waan soo dhawaynaynaa, wixii siyaasada siyaasiyiintaan u daynaynaa, laakiin shacabku wuxuu leeyahay muxuu ah codkiisa uu leeyahay, aragtidiisa iyo rabitaankiisa uu leeyahay. waxaan rabaa taageerada inaan ku xijiyo nabadgelyada in laga shaqeeyo reer hiiraan. waxaan si weyn ugu taageeraynaa nabadgelyada ay u fadhiyaan oo ay isku dhabar jebiyeen inay xoog saaraan oo ay ka shaqeeyaan. 23 sano mase 24 sano ayaa dagaal lagu jiray. dagaal wiilaa ku dhinta ee wiil kuma dhasho, soomaalida tiraahda. aad iyo aadaan qodobkaas ugu adkaynayaa carabka, nabadda in la qaato, nabadda in la qaato. reer hiiraan beesha dhigtay gogosha nabadaynta iyo aaya ka talinta waxay noo sheegeen xildhibaanadu ilaa 9 muxuu ahaay beelood inay shirka taageereen oo isugu yimideen oo ka talinayaan oo dhex fadhiyaan. waxa haray oo ama laba ah ama wax u egna waxaan leenahay raaca walaalaha 9 oo badanna waxaan leenahay ka daalinay doona. reer hiiraan wada jiray dantooda ku goosan karaan. galabtoo dhan waxaa lalahay hiiraan waxa weeye meesha ugu xildhibaano badan ay ka mid ahayd. waa run, xildhibaanadu meeqay ahaayeen? 12 uu ku lahaay hiiraan uu ku lahaa. xildhibaanadoo dhan 122 ninay ahaayeen. dadkan waa yaryaraa laakiin taariikhihii ay hayaan. 122 nina reer hiiraan waxay ku lahaayeen xildhibaan. ay reer hiiraan waxay ku lahaayeen 12 tirikoob bayna ku yimideen iyo dadka degan. 60kii ama 56dii dowladdii daakhiliga ahayd miyuu ka yaraaday dadku hadda? kama yaraan, kama yaraan. hal qodob waxaan rabaa inaan oo laga hadlay hiiraan waxba gobollaa laga goostay, degmooyinaa laga goostay, laakiin farlibaax lama gooyin. hiiraanay ka mid tahay. taas waxaan rabaa inaan idhaahdo. laakiin meesha la yidhaahdo waxaan rabaa qurac joome maya lama rabe tiyeglo iyo abaysaale hiiraanay ka mid ahay. waa la gooyey. soo waxaan rabaa siday raggii iga horreey yidhaahdeen meelay ka socoto ma naqaan, laakiin xaasidnimo hiiraanaa jirta. annaga waxaan soo gaarnay ayadoo ninka Soomaaliya inuu wax ka noqdo rabaa oo yidhaahdo hiiraan aan ku dhashay. reer hiiraan hadduu doono yuu noqonin. hiiraan aan soo joogi jiray, hiiraan aan wax ka soo noqday, at least askari aan ka soo qortay, iyadoo lagu faanaan joogi jirnay. ma garanayo marka ma siyaasad xumad reer hiiraana mase waa cadownimo. anigu waxaan leeyahay waa cadownimo. taa marka haddaan isku tashanno, isku duubnaano, ummadda mas-uuliyadda qaadaysa oo u baahan tahay shacabkeeda. hadday xataa wax qabto shacabka way u baahan tahay, laakiin annaga hanala ka helo tawfiiq iyo isku duubni. beeshaan gaar ahaan gogosha dhigtay waxaan ku adkaynayaa war hadaalinina nabadda doona, aaya ka talinta doona. dantu meeshay shacabka iyo gobolka dantiisu meeshay ku jirto walaalayaal noo horseeda. waxaan rabaa inaan intaa kusoo gaabiyo. siyaasadda siyaasiyiintan rabaa inaan u daayo, sababtoo ah dadku siyaasad ma wada mateli karo. siyaasaddu meeshay dadka ku hogaamiso ayaa la rabaa shacabka inuu raaco. السلام عليكم ورحمة الله.